markuu gaadi mar labaad ayaan mahadcelinaa waxaan leenahay waa idinka gadoonay anagana waxaan ku wareejinay saraakiishii ciidanka insha Allah taala waa hal jooga durra Ramadan waxaan leenahay qofkii wax la baxa maanta wuxuu helayaa sadaqa maxaan ku raahdaa bilaaran oo meel badan taabanaysa waxaa loo hubaa ciidankan inuusan maanta gaajeysnayn waxaa loo hubaa bisha la gaarin mishaarkiisa inuu helayo waxaa loo hubaa saadkiisa inuu si dhab u helayo ayadoo saa ay tahay waxay dadkii shacabka garteen inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa loo garab istaagayana waa waxyaabaha ay qabanayaan culays waxaan marka hore u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka garab istaagtay ciidanka xoogga dalka muhiimadu ninka qurbaha joogana waxa weeye asaa inta gartay telefoon noo soo diray goostay inay ciidankooda garab istaagaan dhiirigelinna u sameeyaan taasna waa farxad iyo Soomaalinimo noo bilaabatay oo aad moodo inaan markaan qof kasta oo Soomaaliya uu xiisa qabo inay Soomaaliya si sax agaheed isku taagto baahida ciidan ee shisheeyay qabtan ay ka baxdo. Rahmaan Rahiim. aad bay sharaf noogu tahay in markii labaad ay soo gaarto deeq lacageed oo dhan $7,000 oo lagu soo gaday raashinka idin muuqanayo waa u mahadcelinaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo dadka qurbaha jooga oo Mareykanka ku sugan oo arrinta iska xil saaray waxaan ka baran karnaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto siday u garab taagan tahay ciidankeeda ay doonayso heel iyo hooba wax inay runtii ula qabtaan askariga dagaalka ku jiro markuu arko qofkiisa shacabka ah ama bulshadiisa oo garab taagan oo dhiiri gelinayso isagoo libaax ahaa wuxuu noqonayaa halkii qofka libaaxyo badan buu noqonayaa si kasto ay ahaato qof kasta oo Soomaali ah ayaa soo dhaweeyay marka dawladda dhexe ee Soomaaliya bilihii aynu soo dhaafnay ay soo gaarsiisay magaalo xuduudeedka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si ay ammaanka xuduudaha iyo magaalooyinkaasi ay gacan ku hayntooda u lahaadaan shacabka ayaa waxa kamid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka taas oo markii labaad ay tahay deeqda iyo garab istaaga ciidankooda ay soo gaarsiiyeen tani ayaa kamid noqonaysa dhiirigelinta iyo horay u socodka ciidamada qalabka sida oo la filayo ammaanka gabi ahaan dalka Soomaaliyeed in ay si toos ah ula wareegaan Samsam Cabdi Kariin Universal TV Balad Xaawo.